nin culamadii salafka ka mid ahaa ayaa mar alle markuu salaada xidho thaabit albunaani baa loohan jiray abu muslim raximahullah waxaa lagu yidhi salaadan aad tukanaysid annaku waan laanahay si aad ku hesha adigu salaadan mar alle markuu salaada tukanay lilmada ka daadanaysa wuxuu yidhi kaabatu min ajli salaati ل20 sana watanacamtu biha 20 sana buu yidhi salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaadho 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sanana waa ku raaxaystaa buu yidhi salaadaas kayfiyadda salaada aad u tukata noo sheeg baa laga yidhi wuxuu yidhi niman yahow anu safka markaan gala buu yidhi imaamka aan gadaashiisa istaagin salaada xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsadaa qalbigayga yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waxaan ka soo qaadaa safkan miskiidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu yidhi salaadda inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriyaa ucbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waxaad u caabudaa si waxaad adigu aad u jeedood arkayso haddaad adigu arkayno ilaahay jalla wacala isagaa ku arkaaya wuxuu yidhi markaa waxaan ka fikiraa markaa salaadda dhexdeeda kii xagga midig iga xigay oo malaa'igtu ay qaadoo layidhi ilaahay baa kuu yeedhay xisaabtaa lagugu yeedha soo dhaqaaq haddana kii bidixda iga xigay oo la qaaday kii iga dembeeyey oo la qaaday kii iga horreeyey oo la qaaday waxay salaaddu ii dhammaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha keligaa baa ku hadhay haddaa ilaahay kuu yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenkaa iyo shucuurtaa baan salaaddeeda ku dhammaystaa buu yidhi aye ra'iislii ninkuna dareenka ku dhammaysataan masaajid annagoo habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat alcishaa وأما إن كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد أمين وركعتي إلا بعد صلاة العشاء أنا وأكجرا صفقة هوري صلاة مركي لقى بحيب إمامكم يدي ورأمين تلما ذلك كنتن والله من حقه أم بلابو والله بلابو نبلابو والله وأكون ضربه لا إله إلا الله markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbi masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligee gudaha ka wada hadallaa buu yidhi waalinaabatu ilaa daari alkhuluud min asbaabi alhidaaya inuu qalbigii qofka nuur alhidaaya ay degtay waxaa lagu gartaa buu yidhi rasuulku daarta waaritaanka u saaxiibka ee lagu dambaynayo ayuu qofka muuminka qalbigiisu jeclaadaa buu rasuulku yidhi والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله علامة صدحات مؤمنك لغو قرطا وحاكمد أبو يوري رسولك انت قفك مؤمنك أجش أيسن كوئما أساقع مشهد أو ديار من منا لا يكره الموت كما أنت مسلمين تا نولش يجريدا نولش جعله أشياء ماتريال كي العقدة هي عملك الصالحة قلبي إنه هذا دباتها إنه قلت ما دوحه إلنا يا لعقته إلنا يا وحول العقد هذا هيسا مشاكلك ويحل اسمه خالق يا مخلوق أنا ما أنتم مضوا كلا قرن الله الحيبة خالق يا مخلوق إلهي ما دونا يا قلبي عمالك لإنه وجهه إلا حق سمويانه وماشي إلهي أدونك وكفير يبو رسولك لقلبك علينا أن نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو الشقاد هذه كيم دي هذا قولك هردد أدو قلت ما دحاس كاقي ونكال ولا فردي كور ولله المثل الأعلى هلك إلهي ما جعله ما نربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا يرجك لا يبريك لا إلى بريدي سي عبسدي سمو يعني وحمنت كلية جرك الله شاقين كليته القلب قعمه واللبو لقوه واللبو إنه واللبو سنكه واللبو دبنه واللبو دقوه واللبو وفرسه كليه واللبو
garbuhu waa labo bawdadu waa labo laakiin qalbigu waa mid keliya maxaa qalbiga mid looga dhigay waa xubinta keliya jirka bini aadamka maamusha buu rasuulku yidhi idaa saluxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين با كجرت جرك بني آدمك هدي حقاقت جرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك ابو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك محوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدمك وحي نقنيا حبنا مرنا إلهي عن عسيان كيسا كدعي marna ilaahay inay caasiyaan way adkaan maadaama xubintaasi maanta ay bukootay indhaheenni waxay rabaan bay eegayaan dhagaheenni waxay maqlaan bay dhegaysanayaan gacmaheenni waxay rabaan bay qabanayaan lugaheenni meeshay rabaan bay aadayaan dhaqaalaheenni meeshaan rabnaan ku bixinaynaa hadalkeennii meesha waxaan doonaan ku hadlaynaa waxaan doon xasan albasri raximahullah ayaa yidhi 30 sano maan qoslin 40 sanana maan kaftamin waxaan soo gaadhay rag iyo aqwaam waxaan soo gaadhay aan markaan la joogo aan isku malaynayay inaan anigu tuuga aan isku malaynayay buudi waa imaamkee waa khayru taabiciin weeyaan waa caalimkii taabiciinta ugu cilmi badnaa weeyaan waxa hadal kaale 30 sano maan qoslin buu yidhi 40 sanana hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaadhay aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sidaa leh hadday jirka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meelu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin nin culimmadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaadhay tiinuhuna ma caddaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseene way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ayaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baan ku shaqeeyaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaya innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus